akademiyada hagaag ee hogaaminta iyo horumarinta aadanaha oo aad uga barateen tayeynta iyo xirfad kordhinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa daafurtay barnaamijka xirfadaha guusha nolosha oo ah tababar aad u heer sareeya oo lagu qaadanayo ilaa 8 xirfadood oo kala duwan. dhammaan ardayda ku soo dhawaada maanta waxaan bilaabaynaa barnaamijkii aan wada sugaynay barnaamijkaas oo ciwaankiisa la yiraahdo xirfadaha guusha nolosha. barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay 8 xirfadood oo kala duwan. 8daas xirfadood waxay socon doonaan 4 bilood ayay socon doonaan. 4ta bilood waxaan rajaynaynaa inay 4 sano idigu dhigmato insha Allah ta'ala. tababarkan wuxuu isbedel ku sameynayaa fahamka guud ee aragtida nolosha iyo sare u qaadida aqoonta ardayga si uu u guuleysto. waxa kale oo ardaydu baran doonaan hibooyinka iyo awoodaha uu Ilaahay u hibeeyay iyo sare u qaadida aqoonta ardayga si uu u guuleysto. ilaahay muxuu ku hibeeyay maxaa leedahay maxaa awoodo ah waxa laga yaabaa inaad aad iyo aad u tahay qof qoraa ah oo raatib ah oo kaatib ah oo aad wax u qoro laakiin aadan garanay inaad ku fiican tahay. waxa laga yaabaa inaad tahay qof aad u fasaxo badan oo saameyn badan bulshada ku leh laakiin aadan garanay. waxa laga yaabaa inaad tahay qaari'ul qur'aan oo aad u cod qurxoon oo sida Sheekh Cabdilbaasit Sheekh Cabdilsamad aad tahay laakiin aadan garanay ayaa laga yaabaa. xirfadaha ay dhalinyaradu ku qaadan doonaan tababarka waxaa ka mid ah barnaamijka koowaad ee xirfadaha guusha nolosha aad ku qaadan doontaan wuxuu noqon doonaa baro shakhsiyadaada iyo nooca hogaamintaada ayuu noo noqon doonaa insha Allah. skiilka labaad ama xirfadda labaad oo aad ku qaadanaysaan xirfadaha guusha nolosha wuxuu noqon doonaa writing skills ama waxa loo yaqaano xirfadda wax qorista. 3 waxaan qaadan doonaa waxa loo yaqaano public speaking ama fasaaxada iyo hadal jeedinta. xirfadda afraad ee barnaamijka xirfadaha guusha nolosha aan ku qaadan doono waxay noqon doontaa waxa loo yaqaano personal strategic plan ama dejinta qorshaha fog ee qofka shakhsiga uu leeyahay. xirfadda shanaad ee aan ku qaadan doono barnaamijka xirfadaha guusha nolosha waxay noqonaysaa waxa loo yaqaano negotiation and selling skills ama waxa loo yaqaano awoodaha wada xaajoodka iyo qancinta. xirfadda lixaad xirfadaha guusha nolosha kamid oo aad ku qaadan doontaan waa waxa loo yaqaano relationship and networking yani qofku inuu dhiso muxuu dhisayaa xiriir fara badan iyo calaaqaad fara badan oo fursado u keenaya inuu barto sababtoo ah networking adduunka waa wax ugu qatarsan. xirfadda toddobaad oo kamid ah barnaamijka xirfadaha guusha nolosha waxay noo noqon doontaa waxa la yiraahdo problem self solving and decision making oo macnaheedu loola jeedo qofku inuu awood u yeesho ama barto sida loo xalliyo dhibaatada noloshiisa soo wajahaysa. xirfadda 8aad oo ugu dambaysa oo aan qaadan doono barnaamijka xirfadaha guusha nolosha aan ku qaadan doono maxay tahay critical thinking and debating skills. maxaa loola jeedaa qaabka loo fikiro oo wax loo qoriyo oo fikirka loo abuuro inay tahay iyadana skill aad muhiim u ah oo qof kasto ee nolosha inuu ku guuleysto raba uu baahan yahay. ugu dambeyntii qaar ka mid ah dhalinyarada loo qabanayay xirfadaha guusha nolosha ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan tababarka. fariintan dheer waxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan xirfadaha guusha nolosha kuwaas oo ah kuwa bedeli doona mustaqbalkooda nololeed iyo si u noqdaan dad leh balkii nidaam hogaamineed dad leh go'aan qaadasho dad leh dad wax akhri kale noqdaan inay ka faa'iideystaan xirfadaha guusha nolosha. barnaamijkan waxa rajayn doonaa inay ka faa'iideysto oo ka faa'iideystaan dhammaan ummadda oo ugu xiriira family ha ahaadaan asxaab ha ahaadaan dhan walba ha ahaato. waxaan rajaynayaa inaan gaarsiin doono arday badan qofkii jecel inuu shakhsiyadiisa hormariyo wajaho nolosha dabcan safarka nololeed dabcan uu xalliyo shakhsiyadiisa qorshe nololeed uu yeesho runtii waxaan kula talinayaa inay ka faa'iideystaan barnaamijka xirfadaha guusha nolosha oo ay bixinayso hagaag academy. haddii aad daraynayso in aad qaadato tababarka fadlan kala soo xiriir akademiyada ciwaanada shaashada kaaga muuqda.